saaxiibayaal inaad fiican tihiin ayaan idiin rajayey dhammaantiin. Salaan ka gadaal saaxiibayaal, sidaad tumadda muuqaalka ku soo aragteen maanta waxaan idinla wadaagi doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay akhrisku. Shakhsi ahaan waa fara-ku-tiris kutubta aan akhriyey. Tiradaa kooban ee aan ka akhriyey aqoonta jiraalkeed ku kaydsamaysay buugta, jeer kalena aan ka fahmay kana kororhsaday ayaan idinkula wadaagi doonaa waxyaabihii aan ka dheefay akhriskooda. Ku darsoo muhiimadduna ma aha inta buug ee aad akhriday, ee waxa muhiim ah inta buug ee aad fahantay. Daba maxay tahay dheefta aynu ka helayno inaynu wax akhrinaa? Aan ku bilaabay Alla subxaanahu wa tacaala 5tii aayadood ee u horreeyay ee uu Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ku soo dejiyo. 2 ka mid ahi waxay amreen amase ay fareen inuu wax akhriyo. In uu wax akhriyo nebigeennu waxa la faray intaan waajibaadkalaba la farin. Xitaa intaan soon, salaad iyo sakatoona la farin. Waynu dareemi karnaa mudnaanta eebba siiyey wax akhriska. Waxaynu ka sii soconnay kolka aan wax akhriyo waxaan ogaadaa waxaanan hore u ogeyn. Xitaa inay jiri karaan uusan maankaygu suuraysan karin. Waxaan ku war helaa xagal aanan wax ka eegi jirin. Gees aanan hore u ogeyn ayaan arkaa in wax laga eegi karo. Sidoo kale waxaa xaqiiq ah in qofka wax akhriya uu ka cimri dheer yahay midka aan wax akhrin. Uu ka cimri dheer yahay. Maxaa yeelay marka aad akhrido buug ka warramaya taariikhda qarni tegay, waxaad haysaa dhammaan dhacdooyinkii iyo xogihii micnaha lahaa ee qarnigaasi dhacay. Tusaale, buuggani aad u jeedaan ee Wataatir Maxamed Cali wuxuu ka warramayaa sooyaalkii halgan ee halgamaa Maxamed Cali 1938 ilaa 1988. Kontonkaasna halgamaaga noloshiisii iyo halgankiisiiba buuggan ayay si farshaxanimo leh ugu xardhan yihiin. Isna kolkaad duganayso ruux ahaan ayaad ula safraysaa buugga. Waad la kacaamaysaa halgamaaga oo waad la koraysaa. Waxaad isaga dab qaadaysaan hawd ilaa cadan. Jeer kale waxaad wada maraysaan tababaradii jabhadaynta. Kol kale jeelkaad ku wada caweynaysaan. Kol kale waad wada jabhadaynaysaan. Kol kale waxaad qayb ka noqonaysaan dagaallo badan oo taariikh leh. Ugu dambayn, si gobonimo leh ayuu dunida uga xijaabinayaa Eebbe ha u raxmaadee. Buuggiina waad soo afmeeraysaa shakhsi ahaan amase akhriste ahaan. Buuggu intan aan sheegay xog ka badan ayuu xambaarsan yahay, balse tusaale ahaan ayuun baanu soo qaadanayaa. Haddaba kolkaad idlayso, fahanto, misna ka dhex baxdo buuggaas, xogtii jiraalka halgamaagaasna aad weelayso, waxaad la mid tahay sidii ruux jiray oo joogay wakhtigaasun. Jeer kale, wax badan ayaad ka kororhsanaysaa nolosha halgamaagaasi. Maxaa yeelay nolosha hal qofi waa nolosha qof kasta. Buugga halgamaaga tusaale ahaan ayuun baanu soo qaatay, ee buug walba oo naf lihi waa la mid. Qoraayada buugtu si hagar la'aan ah ayay noola wadaagaan waayo-aragnimadooda jiraalkoodii iyo kay akhriyeenba. Kolkaasaynu ku dul safarnaa, wax ka ogaanaa, kana dheefnaa dheef aynaan sinaba u helleen. Haddaba bal haynu wax ka soo qaadanno wixii hore looga yidhi wax akhriska. Aan ku bilaabay Alla subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa qur-aanka ah ku furfurtay ereyga akhri sidaynu hore u soo sheegnayba, taasoo ina garansiinaysa akhrisku liibaanta uu leeyahay. Wax akhriskana qiimo iyo qadarin ugu filan hadalka Alle subxaanahu wa tacaala. Inta maanku gaajaysan yahay, guuli waa weli, waa hadraawi. Hadraawi waa runtii oo maanku u gaajoodaa sida jidhku u gaajoodo. Jidhka waxaa gaajo bixiya oo matada aynu quudanno, halka quudka maankuna uu ka yahay akhriska iyo ogaalka. Asna Eebbe ha u raxmaado. Sidoo kale waxaa jirta murti qalaad oo oran jirtay the more you read, the more you get, oo macnaheedu ahayd wax badan akhri, wax badan baad helaysaa. Ugu dambayn, kama gayoonayo dheefahaynu ka helno wax akhriska oo wuxuu qaadan maalmo badan. Inahaas aynu ku soo afmeerno muuqaalkeena maanta. Waxaanan idinkaga tegayaa saaxiibayaal wax akhrista aad wax ogaataan.